haddaba ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa qodobka ugu horeeya safar ayaa la filayaa bishan 14keeda iyo 15keeda inuu ku tago dalka Shiinaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo arrimo dhowr ah oo siyaasadka caalamka way ku jiraan arinta Iran iyo warbixino kale ayay u socdaan inay halka kala hadlaan madaxda Shiinaha Iran iyaduna waxay sii dirsatay maanta oo baxaya oo Shiinaha sii aadaya wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi wuxuu la sii fariisan doonaa madaxda Shiinaha wixii warbixin ah iyo xaalku meeshuu marayo iyo wixii oo dhan ayuu ka sii hormarin doonaa Shiinaha oo xog fara badan haya oo waxa la isku hayo waxa kale kulli wixii oo dhan xogtiisa haya ayuu Trump tagi doonaa Trump ujeedooyinka ugu waaweyn ee qodobadiisa waaweyn waxaa ka mid ah in Shiinuhu qayb ka qaato sidii Iran loo cadaadin lahaa oo ay u furi lahayd baribiyoodka Hormuz haddaba marka sheekadaasu marka waxay ka mid tahay game siyaasadeed la yiraahdo ciyaar siyaasadeed Shiinaha marka lagu kala tartamaya Iran haddayba sii aadayba ninkan markuu imaanayo Shiinuhu xogta waa haystaa marka meesha hawl badan socota haddaba aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay Araghchi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa ku sii jeeda maanta wadanka Shiinaha ka hor kulanka naadirka ah ee ay yeelan doonaan Trump iyo Xi oo ah labada madaxweyne ee Mareykanka iyo Shiinaha haddaba warbixintu sii socotay waxa leeyahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa sheegtay bageeda Telegramka ku soo qortay in wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi uu aadi doono maanta magaalada Bakin ee caasimadda dalka Shiinaha maanta oo Talaada haddaba waxa la sheegay inuu halka wada hadallo muhiim ah kula yeelan doono wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha waxayna ka wada hadli doonaan xiriirka iyo waxyaabaha ka dhaxeeya labada dal safarkan ayaa wuxuu ka sii hormarayaa safar madaxweynaha Mareykanka uu ku tagi doono Shiinaha maalmaha 14 iyo 15 bishan aynu ku jirno ee May ayaa la sheegay marka sheekadaas iyaduna halkaas ay maraysaa waa ciyaar